adiguna noloshaada waxa bilaabaysaa 2 pm ina bilawda 2 am ina bilawda laga yaabo listen amar dhaqanka isaga hadaa leedahay please and please ku dadaal waqti kooban inaad ka takhalusto wuxuuna kamid yahay dhaqamada qofka dhalinyarada noloshiisa burburin kara simple mar hadaad aragto qoraxdu ka soo orbaxaysaba u badi noloshaada meel mugdi inay ku socoto bad adoo jiifa ama hurdaaya mar haday qoraxdu soo baxdo waa ifafaala muujinaysa mustaqbalkaagu inaanu qurxoonayn yes orita meela fahmaysaa so sidee marka xilli hore ku toosi karaa marka waxaad maqashaan mararka qaar iyadoo la leeyahay qofku tusaale ahaan ama dadka inta badan libinta gaara waxay leeyihiin wax loo yaqaan morning routine sheekadu morning routine kaliya ma ahane even waxay leeyihiin wax loo yaqaan evening routine morning routine waxa la yiraahdaa waxyaabaha qofku early time markuu soo kaca uu sameeyo waxa la yiraahdaa morning routine la yiraahdaa dadka morning routine inay dhaafeen bay waxay leeyihiin evening routine waxa waaye qofku habeenkii intuu san seexan caadooyin uu sameeyo maxay ka caawinayaan xilli hore inuu soo toosay ka caawinayaan so simply waxa ugu muhiimsan oo xilli hore aad ku soo toosi kartid waa adoo xilli hore seexdo it's not possible fairy mararka qaar 8 saacadoo dhafar inta ku gaaray waxa adoo dhalinyaro ku dhafartay anigu ma garanaaye 8 saacadoo dhafar ku gaaray suuragal ma 10 saac ina soo kacday suuragal ma laakiin 3 saac bar kuwa wixii leeyahay macallin 3 saac maxaa ka seexanaa hadayba nolosha noo bilowtaay listen 3 saac laakiin markaa seexatid waa very simple 10 saac ina soo kacdaa iyo barameena soo toosi waa very simple waxaan marka fiiriyaa waxay u baahan yihiin la qabsi iyo adaptation iyo ku adkaysasho u baahan yihiin listen dhageysa marka 3 qodob baan ku soo ururinayaa waxyaabaha qofka xilliga hore ka caawin kara inuu soo tooso waa midda koowaade qofku xilli hore inuu seexdo waa midda labaadoo isla halka ku jirtee marka seexanayso waxa la rabaa jadwal inaa ku seexad habeen 5 saac seexo habeen 2 saac lama rabo jadwal inaa ku seexad marka jadwal ku seexatid jadwal oo ku soo kici kartaa simple waana wax la tijaabiyo marka lama rabo fiiri markay ka qabato lama rabo hadda dhalinyaradu inta badan markay daalaan seexdaan waa la yaqaanaa indii markay xanuunaan taleefankii ku daal kuwa qaarna waxa la sheegaa taleefanada markay ka damaanaysa seexdaan madam wax kale uu san ku soo jeedo malahan taleefan markay damo seexana waa isdhiibaa macna meesha seexanaysina it should be clean hadaysan environment-ka duusan ku caawinin badana waxay kamid tahay waxyaabaha qofka bini aadamka ku dhigi kar marka environment nadiif ah oo qurux badan mar walba ina seexatina ku dadaal halka aanoo ka bixin marka waxa la yiraahdaa dadka successful people ka waxay leeyihiin adaatay sida sheegay morning routine qurux badan morning routine waxa waaye jadwal subaxeed baa la yiraahdaa tusaale 2 saac inta aan la gaarin maxaa sameeysaa horta tusaale waxa soo kacday 10 saac ama waxa soo kacday 5tii ba iska dheh 5 iyo 12 iyo 1 saac waa 3 saac meesha ku jirto 3 saac marka si loo fiiriyo aad u badanta maxaa sameeynaa marka waa 3 saacadood oo qaaliyo waliba fiiriya saacada hore 5 iyo 6 iyo waa saacadaha jawi iska degan yahay meesha joogto xitaa ay sanbuuq lahayn dadku inta badan ay hurdaayaan marka inta badan dadku markay hurdaayaan hadaad qaniimaysato waxay u badan tahay waxaysan heli doonin inaad heshay u badan meelafantaan halkaas yes listen meesha marka waxaan rabaa inaan idin sheego kulli nabi kaleey salaatu wasalaam oo asxaabtiisa la hadlay wuxuu yiri adduunyadiina idinka iiga cilmi badan waa tiyo kale qof kasta duruufihiisa iyo waqtigiisa iyo asaga iska leh aniga morning routine-kayga iyo saaxiibkay liibaan waxa laga yaabaa shaqo inaan isku lahayn baa laga yaabaa isku shaqo manin isku jadwal ma isku duruufana manin marka qofku qof kale isku ma cabiri karo horta halka meel fahmisaan laakiin waxa jira waxyaabo laga sameeyaa tusaale annagu hadda marka 5tan soo toosno shaqada u horeysay aan qabanna maxay tahay islaamanahay of course inaan waajibka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga ribay horta inaan soo tukano yes barnaamij saddexaad meelahaas miyo ama garanayo inspire me markan ka hadlaynay
qofku sidoo uga guuleysan karo dib u dhigashada maalinka dhalinyaradii ila joogtay qaar kamid halkan wajiyadooda uga jeedaay waxyaabihii aan kula dardaarmay waxa kamid ahayd ku dadaal hadaa rabti noloshaada inay wax iska bedelaan xilli kasta salaada subax jamaacada inaa haleeshid ku dadaal haduu ilaahay khayr iyo baraaro iyo deganaan iyo farxad iyo stress la'aan halka horta kama horeyso horta ma ila fahamsan ka waa waxa caamka ah salaadii baa tukatay halka waa isla soo galeena rag iyo dumar mar waxa laga yaabaa gabdhuhu inta badan guryaha isaga tukadaan waana saas ay noqonaysaa salaadii marka soo tukatid of course juskaaga quraanka ka tur adkaartaada iyo wixii maalinkaas aad ku badbaadi lahayd akhriso wixii marka ka yimaada marka waxyaabaha dadka oo nolosha saameynta ay ku leeyahay ay sameeyaan waxa kamid ah they exercise way jimicsadaan yes kuwa waxa laga yaabaa in yiraahdaan macallin 40 kiilo ah maxaan ka jimicsana this is not yani ma hamba jimicsu kalima ina cayilinta miisaan inuu ku saariya kalima waxa la yiraahdaa maskaxda caafimaadka qabto waxay ku dhex jirtaa baa jir caafimaad qaba waxa aan wax ku tahayna waa caafimaadkaaga waa asaga hadaa weysid no one cares you hal gaar marka ina asaga aad u ilaalisaa waxyaabaha aad ku ilaalin karto waxa kamid ah ina samaysid daily exercise waxa ka badan adiga dhanba fiiri xitaa uma baahnid ina gym aadi uma baahnid 10 minutes 15 minutes 5 minutes oo regular ama joogta hadaa samaysid isna for you maaninkaagu waa hadalka ciyaalka xaafadde waa ku shidan xaqiiqo borin ma dareemis aajis ma dareemis sababta xogaa oo soo jimicsatay dhididka yarka waas dhag marka exercise ka baxdid what's the next inta badan dhaqanka dadka guuleysayaasha ay ku xijiyaan waxa kamid ah leeyahay they read waxbay akhriyaan leeyahay waxas qofka wax waajib ku ah noqdaan wax qofka fildigiisa ka baxsan ha noqdaan waxa la yiraahdaa always they read ma ila fahmaysan halkaas yes meesha marka reading ka waa soo wadaayo qodob kale haduu ilaahay yiraahdo aan rabaa inaan ku faahfaahiyo laakiin mid ogaade ana hada reading ka waxa laga yaabaa dadku markay maqlaanba inay yiraahdaan 2 saac 3 saac 4 saac maalina waxas wax weyn waaye laakiin hadaa sameyn kartid fiiriya ama hadaa sameeysiba maalin kasta intaadan noloshaada bilaabin 10 daqiiqo kaliya hadaa wax akhrisid isbuuci wax weyn baad haysaa bishii wax weyn baad haysaa sanadkiina wax weyn baad haysaa waana 10 daqiiqo kaliya 10 daqiiqana hadda anaga waxay nooga baxdaa social media intaan up and down aan u wadno 10 daqiiqo intaas nooga baxdaa iyo ka badan nooga baxdaa walka meelo fahmisaan akhriskaas haduu ilaahay ku fuuday maxaa ku xiga qofku inuu ku quraacdo cunno qurux badan oo isku dheeli tiran oo nidaamsan si qofka maalinkiisa uu qurxoonaado ana wada dhakhtar ma ahay yes doctor kalka waa noo fadhiya saaxiibo kale dhaqaatiirin meeshan ay ku jiraan waa laga yaabaa badana morningka waxyaabaha aadka looga diga waxa kamid ah cunooyinka oo saliidu ay ku badan tahay waxyaabahaas aad horta looga digaya so iska ilaaliya qof walba kulay karaankiisa tabartiisa marka wax yar oo ku support gareynay maalinkaaga oo aan ka qasayn caajis aan kugu abuureyn fit